الرحمن الرحيم وعشرتين امتحانها كبحي جري اقرا education program waxaa soo jeedinaya anigoo ah Maxamed Cabdirashiid Muuse casharkan waa casharkayagii shanaad ee chemistry-ga ahaa bismillahir rahmaanir rahiim horey waxaan uga soo hadalnay casharkayagii hore sidoo waxaan chemistry-ga bilowga hore ku bilownay inuu laba u kala baxo energy iyo matter matterkii baan waxaan usii kala saarnay laba qaybood casharkayga hore waxaan kaga hadalnay pure substance wuxuu ahaa dib haddaan ugu laabano element iyo compound elementiga oo ka koobnaa same atoms iyo compoundka oo ka koobnaa different atoms elementiga waxaa kamid ah sida goldiga oo kale oo aan hore u sheegnay haddii goldiga burburisid oo microscope ku eegto waxaad la kulmaysaa same waxa la yiraahdo atoms baad microscope ku arkaysaa halka biyaha ku arkaysid hydrogen iyo oxygen two different atoms ka kooban yihiin halkan waxaan u gudbaynaa caawa mixture oo isku jir ah mixture-ka wuxuu kala baxayaa homogeneous mixture iyo heterogeneous mixture homogeneous mixture-ku waa wax isku jir isku milmi kara heterogeneous-kana waa mid markii la isku milo la isku daro ay muuqan karaan oo la arki karo labada waxoo la isku daray aysan uniform ahayn waxaan isu qalmin okay su'aasha isweydiinayna waxay tahay maxaan kelmadahan ama qoraalada ama u baranaynaa waxyaabahan casharkan uga hadlayno matterka inta uu kala baxaya chemistry-ga ilaa heer jaamacadeed ardaygu way daba socon doonaan waxa loo yaqaano terminology-ga ama kelmadahan mixture weligaa waa arki doontaa weligaa ilaa PhD wadi kaama hari doono pure substance element compound homogeneous mixture heterogeneous mixture ilaa iyo PhD ilaa iyo takhasus gaar ah ka qaadanaysid waxa weeyaan waa waxaan ka harayn halkan definition-kan u galno mixture waa maxay isku jirku pure substance-ga waxaan niri wixii markuu ay ka kooban yihiin hal wax wixii markay ka kooban yihiin hal wax oo pure ah waxa weeyaan that's pure substance laakiin wixii markay ka kooban yihiin waxyaabo kala duwan oo tusaale ahaan hore waxaan ku sheegnay milix oo kale hadii jawaan lagu shubo it's pure substance waa hal wax kaliya laakiin ka war haddaan milix iyo ciid isku darno waxay noqonayaan laba pure substance oo la isku daray waxay isku noqonayaan mixture isku jir halka qodobka ay la garateen baa filayaa then mixture-ku waxa weeyaan are just pure substances that are physically mixed together waa pure substances oo la isku daray la isu geeyay physically la isu geeyay ciidii baan soo qaadnay waxaan soo qaadnay milixdii baan soo qaadnay jawaan ama weel baan ku wada shubnay waan ruxnay that's almost then maxaa arki kartaa meesha ugu sareysa iyo meesha ugu hooseysa waxa weeyaan ka koobanuhu kala duwan yahay waxa laga yaabaa kor in 30% ay tahay milix 70% ay tahay ciid hoos 70% ay ciid tahay 30% milix tahay way kala badan karaan kor iyo dhex iyo hoos weelkaas ama jawaanka aan ku shubnay then halkan maxaa la yiri if you mix haddaad isku qastid ama isku dartid sand ciid iyo salt milix iyo ciid dadka they do not chemical bond okay qaab chemically ah isuguma dhagayaan mana sameynayaan new compound you just have kaliya waxaad haysataa sand salt ciid milix lagu daray ma haysatid waxa loo yaqaano compound sata compoundigu tusaale ahaan haddaan soo qaadano waxa loo yaqaanay ii sheeg waxa la yiraahdo oxygen-ka iyo hydrogen-ka waxay sameynayaan bond xiriirkaasna wuxuu create gareynayay new substance or new compound oo loogu yeero water HO2 hadda fiiri marka hore waxay ahaayeen laba atom labada atom markii la isu geeyay chemical bond bay sameeyeen chemical bond-ga wuxuu sameeyay new compound baa ka dhex sameysmay water loo yaqaan laakiin kuwan ma ka sameysmayo then haddaan hoos sii aadno two different substances still they are just mixed together waa laba substance oo kala duwan laakiin weli way isku qasan yihiin iyo milix isku qasan then
mixture-ku wuxuu kala baxaa labo homogeneous iyo heterogeneous homo waa wax isku mid ah hetero wax kala duwan saa u garo homo same hetero different so maxaa la yidhi homogeneousku sida halkan ka muuqata uniform or same throughout waa isku mid ama waa wax hal xabo ah dhammaan weelka ay ku jiraan markaa u fiiris ama meesha waxay ka koobnaashahoodu if you mix tusaale hadkaan la socod if you mix haddaa isku dartid ama aan qasno salt and water biyo iyo cusbo haddaan isku qasno koob baan soo qaadnay biyaan ku shubnay cus baan kula qasnay cusbo iyo biyaha la isku qasay labadaa haddaan isku qasno waxay noqonayaan waxaa ka soo baxay halkaas salt water biyo cusbo leh u fiirso haddaan isku qasno biyaha iyo cusbada waxay soo baxayaan salt water okay at the same time meesha ugu sarreysa iyo meesha ugu hooseysa koobkaas ama caagadaasi a ku qastay cusbada iyo biyaha meesha ugu sarreysa iyo meesha ugu hooseysa haddaad kor ka qaadatid haddaad hoos ka qaadatid haddaad dhexda in yar ka soo qaadid waa isku dhan waxaa haysataa salt water ma kala saari kartid every part is the same qayb kasta oo labadan la isku qasay ah weelka ku jira waa isku mid qodobka waa isla fahnaa filaya waa heterogeneous okay let's come homogeneous way tahay heterogeneous on niman heterogeneous waxa weeye waa mixture waa wax kala duwan oo la isku qasay then uniform maahan not the same throughout haddaanu fiirino meesha ay ku jiraan same ma ahan ma simana kor waxaa laga yaabaa inuu mid ku badan yahay hoos inuu mid ku badan yahay tusaale ahaan haddaanu isku qasno biyo iyo waxa la yidhaahdo iyo ciid haddaanu isku qasno always ciid waxay maraysaa hoos waa ruxdo ciidda hoos bay tegaysa in yaroo ka mid oo boorkaana qaybta kor u imanaya inta dhexe oo dhan iyo inta ugu sarreysa waxa weeyaan waa biyo but still have very distinct waa la kala saari karaa ciiddii baa gaar u soo qaadan karta biyaha haddaan rabno inta koraan biyaha saa soo qaadanaynaa haddaan ciidda u baahanaa gacanta intaan gelinaa hoos ka soo qaadan karnaa marka waa heterogeneous mixture okay inta aynaan casharkeena gabagabayn qodobkaan usoo laaban si aan xoogaa u qeexna halkaan tusaale ahaan halkaan waxaa ujeedaa si fiican u fiiri heterogeneous mixture-kan halkaan ku jira waa la kala saari karaa fiiri waa labadan waxoo la isu geeyey kan iyo kan marka kana gaar baan u saari karnaa intaan buluug maariga ah guduudkaana gaar baan u sooci karnaa halkaan fiiri homogeneous markii la isku qasay waxay noqdeen wax isqaatay isaqbalay u fiirso oo kuwan then elementiga oo kale tusaalaha elementiga sidaan hore idin kugu sheegnay goldiga oo kale dahabka oo kale fiiri microscope-ka ku egtay direct waxaa ujeedaa u fiirso hal wax waa gold keliya waxaan waa example loo soo qaatay bluegan colorka ujeedid keliya waa atomiskii goldiga compound baan nimid halkaan u fiirso waxaan noo muuqda inuu ka kooban yahay waxaan water biyaha oo kale two compounds let's take waxa la yiraahdo two hydrogen and one oxygen ka kooban yahay biyaha H2O so oxygen waa kana labada hydrogen oo kuwa labada gees bonding-ka la sameynaya oo attach gareynaya homogeneous mixture-ka oo kuwa waxaan u soo qaadanay milix iyo biyo la isku qoshay okay heterogeneous kana waxaan u soo qaadanay tusaale ahaan waxa loo yaqaano ciid iyo biyo la isku qasay or waxaaba simple example u qaadan kartaa salad oo kale qudaar baan isku jarjarnay moos kabsar moos iyo kasi cabbage waxa la yiraahdaa ansalato liin dhanaan then marka halka yaalaan oo saxanka ku jiraan dee waa la kala saari karaa separately si toos ah waa loo kala saari karaa wax isaa ka qasmi kara maaha so waxa la yiraahdo homogeneous iyo heterogeneous compound element this for
weligaa way ku daba socon doonaan waana basiga chemistryga insha allah casharadeen hore usii socon doonaan haddii ilaahay yiraahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu